وكما سعيد عبد الله دني halkee ayuu ku dhashay hantidiisa waa imisa balwad miyuu leeyahay dabeecadiisuna waa sidee inta idil muuqaalka ayaa kaga bogo doonta ee ka hor fadlan muuqaalka laagdhe siina share garee si saaxiibo badan u gaaro سعيد عبد الله دني wuxuu sanadkii 1966 ku dhashay caasimadda dalka Muqdisho sanadii 1972 wuxuu waxbarashada hoose dhexe ka bilaabay dugsiga hoose dhexe ee Muqdisho 1980 ilaa 1984 wuxuu dugsi sare ku qaatay Sheekh Xasan Barsame ee Muqdisho halka 1986 ilaa 1990 uu jaamacadda ummadda ka diyaariyay kulliyadda luqadaha 1998 ilaa 2000 shahaadada labaad ee jaamacadda ayuu ka qaatay jaamacadda Botre ee Malaysia dani ayaa ka mid ahaa aasaasiyaasha hay'adda khayriga ee Tadaamun oo ah hay'ad ka shaqeysa waxbarashada biyaha caafimaadka iyo gargaarka bini'aadanimada haddana gacanta ku haysa in ka badan 15,000 oo arday ah wuxuuna Siciid Cabdullaahi Dani ahaa gudoomiyaha jamciyadda sanadkii 1992 ilaa 97 intuu dhaxaysay sidoo kale wuxuu ahaa aasaasiyihii dugsiga Imaam Nawawi iyo maamulihii koowaad ee hogaaminayay dugsiyada sanadii 1992 ilaa 98 iyadoo maanta Imaam Nawawi ay dugsiyadiisu yihiin 22 dugsi oo 5 ka mid ah ay yihiin dugsi sare Siciid sanadkii 1994 wuxuu ahaa xubin ka tirsan guddiga waxbarashada gobolada waqooyi ee bariga Soomaaliya sanadii 1996 wuxuu xubin ka noqday guddiga cilmi baarista ee la shaqeynayay hay'adda Wharton Society oo wax ku qorta heerka siyaasadeed dhaqaale bulsho ee gobolada waqooyi ee bariga Soomaaliya sanadihii 2002 ilaa 2012 wuxuu xilal kala duwan ee heer maamula ka soo qabtay urur ganacsi oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ururada ganacsiga Waaberi Group Djibouti guddiga ganacsatada Puntland rugta ganacsatada ee Puntland guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee Djibouti Dubai iyo Oman sidoo kale wuxuu heer maamula ka soo qabtay shirkado ganacsi waaweyn oo ay ka mid ahaayeen shirkadaha Tawfiiq shirkadda sibirka ee Barwaaqo African Horn Company Salalah Oman iyo Salalah Macaroni iyo Company Oman dani sanadkii 2005 wuxuu noqday gudoomiye ku-xigeenka guddiga isku dhafka ee ganacsatada iyo dawladda ee loo xilsaaray habeentii canshuuraha ee Puntland ugu dambeyntii 8 bishii 2019 wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Puntland inta waa hordhicii sheekadeena ee maanta markaana u gudagalno noloshiisa gaarka ah aqoontiisa waa heerkay sanadii 1972 wuxuu waxbarashada hoose dhexe ka bilaabay dugsiga hoose dhexe ee Muqdisho 1980 ilaa 1984 wuxuu dugsi sare ku qaatay Sheekh Xasan Barsame ee Muqdisho halka 1986 ilaa 1990 uu jaamacadda ummadda ka diyaariyay kulliyadda luqadaha 1998 ilaa 2000 shahaadada labaad ee jaamacadda ayuu ka qaatay jaamacadda Botre ee Malaysia hantidiisa سعيد عبد الله دني ayaa ganacsade hantidiisa ay kala taalo Dubai Oman Djibouti Kenya iyo Soomaaliya hantidiisa si sax loo moogaa hasaatee shirkadaha kala Tawfiiq shirkadda shamiitada ee Barwaaqo African Horn Company Salalah Oman iyo Salalah Macaroni Company oo dhamaana shirkado waaweyn ayuu shirka ku yahay balwadiisa Siciid Cabdullaahi Dani balwad sax ma laha balwadiisu ugu weyn ayaa ah inuu xalwad aad u cuno sidoo kale wuxuu jecel yahay wax waliba macaan ay sonkortu badan tahay dabeecadiisa dabeecad ahaan Dani waa nin lagu wareeray dabeecadiisa saxda dadka la shaqeeya ayaana aad ugu wareeraa maxaadan kale aad ka ogeyn daawade Dani waa nin aad ugu shakiya staafkiisa gaarka ah oo isagoo wato waana madaxweynaha kaliya aan siyaasadiisa aan la fahmi kareynin kooxda la shaqeysa dhacdadii ugu weyneed ayaan ahayd markuu shaqada ka eriyay 20 ilaalidiisa gaarka ah wuxuuna ka qaatay telefoonadii gacanta iyo lafiyay ku isticmaalayeen kuma sanad daawade la jaanqaadka sheekadan gaarka ah aragtidaada ku aadan Dani qaybta hoose inuu galo wadaag ma sanad